ciidamada dawladda ku-meel gaarka Soomaaliya iyo kuwa Amisom oo isgarabsanaya ayaa saaka waxay weerar ku qaadeen degmada Daynile ee gobolka Banaadir isku horimaad ay kala kulmeen ururka Al-Shabaab ee halkaasi gacanta ku hayay kadib ugu dambeyn waxa uu suuro gashay in ay la wareegaan degmada Daynile ee gobolka Banaadir goobaha ay la wareegeen ciidamada dawladda ku-meel gaarka Soomaaliya iyo kuwa Amisom waxaa kamid ah xarunta degmada Daynile isbitaalka Daynile garoonka diyaaradaha iyo xaafado kale oo ka tirsan degmadaasi Jenaraal Cali Caraayo Cusable Gacmo Duule taliyaha gaaska koowaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkaas saxaafadda kula hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay goobaha ay la wareegeen maanta agagaarkan koox yar oo nimankii khawaariijta ahay ayaa ka qowlaysan jiray saaka waa bariga ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Amisom iskaashanaya ayaa yimid waxooga meelahan ku dhuumaalaysanayna wax la dilay iyo wax cararay ay noqdeen insha Allah taala waajibaadkaasuna waajibaadkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wadeen oo dib u xoreynta ayuu kamid yahay waana mid noo socod doona inta meesha ugu dambaysa laga gaarayo sidoo kale abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu baaq u diray dhalinyarada ka barbar dagaalamaysa ururka Al-Shabaab oo uu ku sheegay in ay yihiin kuwa la maran habaabiyay waa sida uu hadalka u dhigay mar saddexaad mar afraad u digayna dhalinyarada Soomaaliyeed oo la marin habaabiyay waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed kooxda gafanayaasha ee jidiya jahadiidka ee dhalinyarada Soomaaliyeed marin habaabiyay inay ka soo noqdaan una soo noqdaan dalkoodii iyo dadkoodii gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka amniga ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Warsame Maxamed Xasan Joodax ayaa waxa uu ugu horeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uga hambaliyay guulaha ay ka gaareen dagaalkii maanta isagoo dhanka kale ciidamada u rajeeyay in ay sugaan amniga gobolka Banaadir arrimihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed loo idmaday way fuliyeen kuwa amniguna waxaan rajeey doonaa inay ayaguna amniga fuli doonaan kana adkaan doonaan siday uga adkaadeen ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamadii Amisom ay kaashanayeen siday uga adkaadeen inay uga adkaan doonaan qabsashada Daynile ay qabsadeen ciidamada Amisom iyo kuwa dawladda ku-meel gaarka Soomaaliya waxay hubaanti ka dhigaysaa in Al-Shabaab laga saaray magaalada Muqdisho degmada Daynile waxay kamid ahayd deegaanada ay hore u talin jireen ururka Al-Shabaab Bilamir Maxamed Risala TV Muqdisho